hobalayay 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 hede hobalayay gabayga way ugu horeysaaye hobalayay hede hobalayay habsacad ka sansadka iyo hirarka gagabaninan hadal ku socodsiiya bani maanka ku hayaaye hobalayay hede hobalayay kagacayl hobaaliyo dadkoohedu walaaloobaynu gayga iga hirgalan maanka ku hayaaye hawlgalkeedu wuu fudud yahe way hakranaysaane agadaama lagu xiiqayo malaha hinraage kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada nagala socota idilaaantiin meel kastoo caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada telefishinka caalamiga ah Somsa TV waxaanu halkan idinku soo gudbin doonaa markaasi socdaal dheer oo aan ugu anbabaxay anigoo Cabdi Ciraa isla markaasna aanu ka kicitinay gudaha magaalada Woodward anagoo socdaalkaasna ugu kicitinay deegaamada Shuluuxiyey Golchano eegaago dhamaantoodba ka tirsan degmadani ugu horeyntii socdaalkayga waxaanu ka bilownay degmada Woodward isla markaasna waxaanu socdaal kooban ku tagnay magaalada Shuluux magaaladaas oo ah markaasi deegaan markaasi dhul daaqsimo reer guuraa ah isla markaasna le markaasi deegaankaasi ceelal iyo togog aad u qurux badan ugu horeyntii waxaa daawataan bal muuqaalkii magaalada Shuluux hobalayay hooye hoyalayay hoyalayay hoyala mudaba gabaygo wadiyanka tegay mahadhadiise mankii arardayo faladi wayska meel dhigaya ma muuqunin mansooyinkii aan maakiban jiroye mamakakiya gabay markaanaadu kala miro mayalkiisa goortan qabtaen mayalkiisa goortan qabtaan maydalka u fuloy ama u muuqdo weligayba u imaqan mayalkiisa goortan qabtaan maydalka u fulo أما مغضو ولقيبو مقان جهيان معنا يعاون وزعن ممتدي مهدي لابدو مرامي قميسي قمر كينو يزمان دافني مقلية مركي لجلق ليلة بدا ميلو دبا مقديشي يارجي زما مرجي مروق داي رنتي ما تيدا مرجي قرانا يلبادي مالودي من دق مرجي يبولا داي مدشلو جوجي متانا درار داي دشيلو مشحر داي كلام مرنتان لبلا على المريدي ويدا magaalada Shuluux ayuu ahaa muuqaalkaas aad arkayseen isla markaas uu ahaa muuqaal aad iyo aad u qurux badan isla markaasna aad arkayseen sida xooluhu uga cabayaan iyo markaasi togoga dhirta waaweyn iyo waliba goobaha kala duwan ee magaaladaasi imikana socdaalkan aanu ku sii jeednaa ayaa ah markaasi oo aanu ku sii jeednaa magaalada Yeyle oo yana markaasi xoogaa u jirta in muddo ah oo dhan ilaa iyo 10 kiiloomitir magaaladaasi socdaalkaasi aanu ku tagnay magaalada Yeylana waxa uu ahaa sida tan nala daawada gudaha magaalada Yeyle iyo sida markaasi ay tahay xaaladda nololeed ee magaaladaasi يا عاد ما دقتها قرانك ما دقت وبنت انا دقت ولا هلكي مرسا يا hobalayay 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 hede hobalayay gabayga way ugu horeysaaye hobalayay hede hobalayay
habsacad ka samsadka iyo hirarka gagabaninan hadal ku socodsiiya banimaanka ku hayaaye kagacayl hubaaliyo dadkoohedu walaaloobo aynu gayga iga hirgalan maanka ku hayaaye hawlgalkeedu wuu fudud yahe way hakranaysaane agadaama lagu xiiqayo malaha hinraage ama geela kala haysta iyo malaha hala keenaynu kaliyo lablaysku hurahoralla weeyaane hindisaha wax qabad waan jeclaa horu marguuleede halhayskeeni waa inuu rajiyo hiiliyow hogoole hawa caafimad badan arkaa horin magadihiina soo hagaabo dhaharoobka da'ay haka bagaxigiye magaalada yeyle oo uu ahaa muuqaalkaas aad arkayseen ayaanu abaar ku sugnayn magaaladaasi markii aanu nimi waxaana loo keenay markaasi shaah markaas iyadoo si wacan naloo ku soo dhaweeyay hase yeeshee waxaanu kasii kicitinay cabaara markaanu muddo ku joognay magaaladaasi waxaanu u kicitinay magaalo cusub oo iyana in muddo oo dhan ilaa 5 sano aasan oo la yiraahdo Goltono ayaanu socdaalkaasi ku tagnay magaaladaasi waa magaalo dhawaanta la sameeyay banala daawadayana muuqaalkeeda magaaladaasi markii aanu booqanay waxay ahayd markaasi magaalo yar oo markaasi balse ahaatee waxa ka muuqday horumar iyadoo markaasi ay leedahay goobihi kala duwan masaajidadii iskuulkii iyo waliba markaasi malcaamado ardaydu wax ku baranaysay iyadoo xilligan aanu booqanay xilli markaasi guud ahaanba waxbarashadu ay xidhan tahay rabbi mahadnaqiisi markaan anigu miisaanayay muskii baarlamaanada markiian mayeliisugu geynay madaxweynayaal iyo markii minister loo doortay maskaxdii waxna yidhiyo dadkii meelu wada jeeday nimankii melmelay waa kuwii malaykeelidooda nimankii melmelay waa kuwii malaykelidooda hadday maalintiina horkacaan midho ma weyneene manaxanadii baan arliga meeriisna u toline marnaba yaydinaan dhicin kuwii male ku soo goosay miyigana nimankii mindida meel walba u dhiibay kuwii muusanow iyo tolla'ay nagula meengeraysay nimankii mashaqaday dhigeen reer badhanu moostay suntaynagu mudeen wiilashii laysmar magaaladaasi Goltono waanu ka kicitinay socdaalkan waxa uu ku sii jeedaa isla markaasina ugu dambaynaanu ku sii jeednaa magaalada Ceegaag waa magaalo weyn waxa ay dhisan tahay muddo dhan 10 sano balse ahaatee waxa ka muuqda horumar aad u laxaad weyn waxa ay leedahay magaaladani dhowr riig waxa markaasi ay leedahay magaaladani isla markaasna ay leedahay guud ahaanba adeegyadii aad oran kartay oo dhameystiran yihiin iyadoo cusbitaaladii MCH-yadii iskuulkii hoose dhexe iyo waliba markaas guryihii martida oo markaas nala soo mariyay beero aad u waaweyn iyo muuqaalka magaalada sii kordhaya nala daawado oo aan ku nasano muuqaalka magaaladaasi Ceegaag hobalayay heede hobalayay gabayga way ugu horeysaaye habsacad ka samsadka iyo hirarka gagabaninan hadal ku socodsiiya banimaanka ku hayaaye kagacayl hubaaliyo dadkoohedu walaaloobo aynu gayga iga hirgalan maanka ku hayaaye
hawlgalkeedu wuu fudud yahay way hakranaysaan gadaama lagu xiiqayo malaha hinraage ama geela kala haysta iyo malaha hala keenaynun kaliyo lablaysku hurahayalla weeyaane hindisaha wax qabad wadan jeclaaho daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow had iyo jeer haddii aanu nahay bahda somsa deegaankii waxa uu ku sugan yahay iyo halka uu marayo waxaad kala socotaan telefishinka caalamiga ah ee somsa TV magaalada ceegaag waxa ay markaasi aanu tagnay aad ku arkayseen sida markaasi TV-gani looga xiiseynayo magaalada iyadoo aad arkaysay muuqaalka goobaha booshariyada ama macmacaanlayaasha ee lagu sharaabo ama meheradaha uu ku dhajisan yahay loogada TV-gu markii aan weydiinayna waxay yidhaahdeen waxaanu ugu dhajinay markaasi taageerada aan ugu qabno TV-gaasi socdaalkaygu waxaanu ku soo gabagabeynay intaasi annagoo xilli habeennimo markaasi ka soo noqonay magaaladaasi kuna soo jeedna xilligan oo habeennimo ay tahay gudaha magaalada Woodward safarkan waxay diidaadinaya anigoo Cabdi Ciraa tan iyo intaanu ku kulmi doono muuqaalo noocan oo kala waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaana Allah